soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtiin si walba maqalkii idin soo gaarayo jimco wanaagsan maalin wanaagsan wax waliba ay ku tahay oo wanaagsan waa muuqaalkii saadaalinta waa kulamada la ciyaari doona Premier League ee maalinta Sabtiga soo gali doona iyo Axadda sida caadadeed maalinta Jimcada waxaan saadaalinaa kulamada la ciyaarayo Sabtiga iyo Axadda Premier League waa isbedelay dhibci lagu waday 9 dhibcood iyo 11 dhibcood waa la soo jaray Liverpool hoggaanka hadda kaliya waxay ku hayaan 7 dhibcood Man City waxay u jiraan kaliya 9 dhibcood kadib markay Liverpool ay gashay draw Man City way badiyaan Chelsea Arsenal sidoo kale inta muuqaalka gudaha u galin waxaan ka codsanaynaa marka hore inaad page-ka follow dhaadid laagtaada waa muhiim si share garay oo saaxiibada gaarsii waa ku maasan tahay ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkeena maanta maalinta Axadda kooxda Fulham ayaa soo dhaweey doonto kooxda Arsenal labada kooxood waxay wataan guulo ay gaareen kulamadii loo yaqaan midweek kooxda Fulham ayaa ku soo dhaweey doonto garoonkeeda kooxda Arsenal oo la soo baxday wiji cusub Arsenal maalmaha wiji ma lahan Arsenal hadii aad taqaan inay kubadda ka soo bilaabaan goalkeeper-ka ilaa difaacyada soo maro khadka dhex maro kubadda koor la geeyo number 9-ka hadii aad difaac gashid la soo celiyo ilaa aad ka soo baxdid kadibna gool laga dhaliyo waxay ku soo darsadeen Arsenal oo argagax koorna laga dhigaa macnaha penalty kooxda Arsenal oo wiji cusub la soo baxday waxa lagu leeyahay xil ciyaareedkan iyo xil ciyaareedkii hore dhamaaday isku dar ahaan waxay dhaliyeen 22 gool koorna kaliya macnaha koornada waxa uu eebay xil ciyaareedka Arsenal penalty oo kale Arsenal hadii la ciyaaraysid koornaha siin iskaga fogaw koornaha u dhiibin hadii kale koornada waxa kaaga dhigaya penalty 5 ciyaartooy ama 6 ciyaartooy ayaa ciyaartooyda kale kooxda kale ka soo horjeedo gadaasheeda maraya 5 ciyaartooy soo ordayso hal ciyaartooy al reebaa kubadda salcalla ay soo dhaftay ciyaaryahankii loogu soo tagay meeshii u dambeysay ayaa soo taas ku soo celinay 5 nin oo soo gashay boxka waliba boxka ka lixaad waay 18 maan ka lixaad meeshii yar ee goalkeeper-ku dhow ay soo istaagaya min goalkeeper-ku xiraa difaacyada biraha ku jirana waa la qabanaa goal secure sinaba gool loogu macili kara Arsenal markay gaarto corners Arsenal rajo waxa ka soo gashay maadaama Liverpool ay galeen kulankii la soo dhaafay Barejo kulankan ay la ciyaari doonaan Liverpool maalintii waliba Saturday ay ciyaari doonaan Everton ay tahay rajo hamiya soo gal Arsenal horiyaa ku guuleystaan 7 dhibcood kaliya ayaa loogu jiraa Arsenal iyo Fulham waxa ku saadaaliyay Arsenal inay ku adkaa doonaan 3 gool oo nadiif ah waliba 3daas gool la shaka waay korna ka mid tahay ما قان تكواد ميا لبعض ميا عادل أي شيء خير توسع لا شك واي أرسنال كورنو ودلنا كلك فيلم كلك وجودهم بيا كلك أسبوع أما كلك وجوين هوريالك مركز لو يخان بيك سيكسكا قاعدة توتنهام ووايد أمبا عقب فدين مر بدين يسوع مرنا لقى بدين عيو أفرتي كلن على صوت عفي قاعدة توتنهام مر وي بدين مر ولا بدين mar Man City ka soo adkaadeen xalayne waxa ka adkaaday kooxda Bournemouth waxay u bixi doonaan ay soo dhaweey doonaan kooxda waayada la cilinaya kooxda kaliya ee horyaalka Premier League xil ciyaareedka 2024-25 labada kooxood kaliya kale koox kale maahan waa kooxda Chelsea oo sameysay isbedel macquul ahayn kulamadii loo yaqaan midweek waxaa la bedelay line-up-kii Aston Villa loogu adkaan 3 gool iyo eberka waxaa laga soo bedelay 7 ciyaartooy kooxda kaliya ee sameyn karta waa kooxda Chelsea kooxdaas ayay soo dhaweey doonaan sida caadada ahna kulankaas waxaa loo dhiibay referee-gan oo loo yaqaan Anthony Taylor ninkan u jeedid referee-ga 5 kulan ee u dambeysay ee Tottenham iyo Chelsea dhex maray markuu referee ka noqday mar waliba wuxuu dhiibay radka مرو معلمينتي لسيي أنتوني كونتي iyo Thomas Tuchel isdagaalayeen kulankii u dambeeyay Jackson hat-trick ka dhalinay laba red card la siiyay Tottenham Pochettino iyo markuu Tottenham red card la siiyay على شنتي كلنا قدام بينكان وتوتنهام جلسوا dhexdhexaadiyo
red cardkiisa bannaanka waayo kulanka Sunday-dane asiga ayaa referee loo magacaabay Chelsea maxaa ka cusub wax dhaawaca macalinka uu qabo malahan ayuu yiri maanta ciyaartooyda dhan diyaar ayuu yihiin kulankaas waliba 7 nin oo line-upkiisa kamid ah kulankii Southampton waa la siiyay halka Tottenham ee ku soo dhibtootay oo xalay hal iyo eber lagu soo adkaaday garoonka Portsmouth Chelsea Tottenham markaa waxa ku saadaaliyay kooxda Chelsea inay ku adkaa doonto 3 gool iyo 1 adigana qaybtooda la wadaag ciyaartaasi maxay ku dhamaan doontaa waa ku maasanta haddii ay la soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka sii shargaray oo saaxiibada gaarsiiyay inta kulmi doona muuqaalka xiga nabadgelyo